fadlan jooji ka ganacsiga caanaha hooyada iyo waliba caafimaadka ilmaha yar ee dhashay. waxay qaadataa ama ay u baahan tahay waqti iyo waliba tababar si hooyada iyo ilmaha yar ee dhashay ay ula qabsadaan naas nuujinta. hooyada dhashay waxay u baahan tahay talo iyo tusaaleyn si ay ugu kalsoonaato caanaha naaska, waxaana looga baahan yahay inay taladaasi siiyaan bahda caafimaadka. balse magaalada Muqdisho waxaa maalmahan dambe ku soo badanaya shirkado taagan albaabka umulisada, kaasi oo marka ay hooyadu dhashaba siinaya hadiyado. wax aad loogu farxo in shirkadaha ganacsiga ay dadkooda hadiyad siiyaan, laakiin waxa ku duugan macna aad weyn kaasi aysan markaasi hooyadu fahmi karin, balse ay gadaal dambe ka ogaan doonto, qatarna gelinaya naas nuujintii iyo waliba ilmihii yara. waxaa dhacda in hadiyado loo keeno hooyooyinka markay umulaan, hadiyadahaasi oo waxyaabo badan ay ku jiraan, balse qodobka aan ka duulayo wuxuu yahay waxaa ku jira hadiyadahaasi caano diyaarsan oo loo yaqaano formula milk, magacay rabaan ba ha wataan. caanahaasi diyaarsani waxaa la siinayaa hooyada, waxaa loo sheegayaa ilmuhu markuu dhashayba inuu qaadan karo, in ay caafimaadkiisa sare u qaadayaan, in ilmuhu ugu cayilayo. waxay ahaataba isla maalinkaas oo dhasho ilmuhu ayaa lagu bilaabayaa caanihii formula milkiga. markay aragto bisha ugu horeysa hooyada cunugeeda soo nuurayo, waxay leedahay waa bas uma baahni naas iyo waxyaabo kale, maxaa yeelay wax walba waxay ku jiraan caanaha. laakiin mid ogow, ma ku jiraan wax laala wixii ku jiray naaska hooyada, mana jiraan caano ama shay u dhigma naaska hooyada. wax walba ayaa ku jiray caanaha naaska, laakiin intii ku jirtay kuma jiri karto caanahan la soo walaaqay ee la soo diyaariyay. balse bil kasta hooyadii waxay ku qasban tahay inay soo iibsato caanihii si ay u siiso ilmaheedii yaraa. ogow, waa lagu qasbay, ma aha wax iyada ay dooratay. sidaas darteed hooyadaasi laba qasaare ay qabtaa. qasaaraha koowaad waxay tahay caanihii rabaaniga ahay ee ilaahay u diyaariyay ilmaheedana loogu talagalay in lagu koriyo lama siinin oo waa laga joojiyay. sidoo kalena waxaa lagu qasbay inay bil kasta iibsato caano kale. marka waxaan leeyahay fadlan hala joojiyo ka ganacsiga caanaha naaska hooyada iyo waliba caafimaadka carruurta. kuma jiro caafimaadka carruurta in caano kale lagu bedelo naaska hooyada. shilimaad amaanta qaadatahay waxba kuma tarayaan. waxaa ka wanaagsan badbaadada nafta ilmaha yar. waxaan maqli jirnay iyadoo la yiraahdo luqadaha caalamka ama luqada Ingiriiska waxyaabaha ay popular ku noqotay waxaa kamid ah marka ugu horeysa qofka waxaa la dhihi jiray lacag qaado ee luqada baro. qofku markuu luqada barto lacagtii ayaa laga soo jinjiray. qofkii luqada bartay wuxuu ku qasban yahay in uu shaqeysto oo dad kale luqadii aqoon baro kadibna lacag ka qaato. sidaasna way ku faaftay. waa sidii oo kale in hooyadu markay dhashay caano loo keeno oo la yiraahdo caanahana wanaagsan, halkan baa loo keenay, laakiin bil kasta way doonaysaa. taas waa nasiib darro. aan kala saarno ganacsiga iyo caafimaadka. hooyada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa caanaha naaskaaga ayaa ka qiimo badan, ka qarash yar, kana hawl yar caanaha la diyaariyay formula milkiga. markaan sidaas ku leeyahay waxay u baahan yihiin caanaha la diyaariyay cabir, qasid iyo nadaafad joogto ah. haddii aad tiraahdo waxaan isticmaalayaa masasa, dhanka kalena waan sheegno wuu ka faa'iido badan yahay caanaha caadiga ah. sidoo kale wuu ka qarash yar yahay oo markastaahi caanihii ay go'aan kama doonaysid magaalada. markaad u baahato inaad magaalka aado, ilmahaaga oo kaliya ayaad xambaarsanaysaa, meesha aad rabtana naaska ku siisanaysaa. balse haddii aad baxdo adigoo u baahan caanihii formula milkiga, waxaad qaadaysaa caanihii, waxaad qaadaysaa masadii, waxaad qaadaysaa biyo ku qasi lahayd. soo shaqo maahan, waa shaqo iyo qasaaro. fadlan aan ka digtoonaan. haddaba waxaan kula talinayaa bahda caafimaadka iyo waliba maamulada isbitaalada kala daaya xayisiinta iyo caafimaadka. waxaan leeyahay ha ku bedelanina qarashaad yar oo idin siiyaan shirkadaha ganacsiga caanaha hooyada. ma jiraan qiimo u qalma caanaha naaska hooyada. dunida si loo helo caanaha naaska hooyada ayaa qarash lagu bixiyaa, hooyadana la siiyaa cunto nafaqo leh. bedelkeeda maahan inaan qarash ku bixino si loo joojiyo in hooyadu caano yeelato ama ay nuujiso ilmaheeda yar. adigu daawade weli ma aragtay arrintan aan sheegayo? hadiyado wiifaya kuwaasoo isbitaalka kuugu imaanaya markay hooyadu dhasho, balse bil kasta laguma siinayo. waa markaas hooyadu ay dhasho waana hal koombo caano ah.